Fafaahinta warkani waxaa magaalada Jigjiga inoo ka soo diray Baare Cali Qaaje. رئيسل وزراء dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed رئيسل وزراء ku-xigeenka Itoobiya madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha deegaanka Oromada ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay wada laami oo isku xiri doonta magaalooyinka Dhagaxle, Galaadshe, Dhagaxmadu iyo Sagag taas oo dhererkeedu dhan yahay 109 kiiloomitir. sidoo kale waxay xariga ka jireen 56 kiiloomitir oo ka mid ah wadadaas oo dhameystiray. jidkan oo dhererkiisu yahay 166 kiiloomitir ayaa waxa ku baxaya adduun lacagooda ka badan 1.8 bilyan oo bir. munaasabadan oo ka soo qayb galan waxgaradka deegaanka oday dhaqameedyo iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda deegaanka Soomaalida oo horeyntii waxa madasha ka hadlay odayaasha deegaankaas oo si weyn u soo dhaweeyay wadadan cusub kuna tilmaamay waa cusub oo badiyay dadka deegaanka ku dhaqan. Wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya waa salaamaya inaan ka aragno sawir ma aha wali ariga maana la kulmin waa salaamaya madaxda kale oo la socota dhamaantood waa salaamaya dadweynaha mas'uuliyiinta dowladda federaalka kelilka iyo dowladda maxaan ku raadaa Itoobiya dhamaantood gobolada ay ka kooban tahay saddex qodob oo yar oo baaqan u soo jeedinay anigu kuma qorin khudbad dheer saddex qodob waxa weeye midda koowaad Itoobiya midnimo Itoobiya hamidoodo midnimo Itoobiya midnimo dhulka Itoobiya waa inay dadka Itoobiya noocyo kala yihiin waa inay horta midnimada ku dadaalaan nabadgelyada waa in lagu dadaalo midda kale waxa weeye meeshaan fadhina hadda aan taaganahay biyuhu waxay jiraan 150 mitir 120 mitir dadka deganna waa ooman yihiin bal dhulkaan fiiri dooxooyinkan beeraha fiiri dooxooyinka geela ku yaala mid kale ma soo baxno horumar u jeedsanno khilaaf aan dhaafno qabiil aan dhaafno gacanta isqabsanno gaar ahaan kililka waxaan u soo jeedinayaa inay ku midoobaan inay dadkooda wax u soo saaraan ay mideeyaan dadka Itoobiya ha midoobo dhulkoodana wax ka soo saartaan gaajaa ka baxaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay goljan ahaan jirtay xeer ciidan balse hadda ay noqonayso goob horumarineed. goljan iyo Galaadshe waa ahayd xeer dhiig maanta ay tahay xeer horumarineed oo jidad iyo horumar ka socdaan. ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo goobta khudbad dheer ka jeediyay ayaa sheegay in deegaanka Soomaalidu ahaan jiray xarun military balse hadda xukuumaddiisu ka dhigayso goob horumarineed. sidoo kale Abiy Ahmed ayaa ka dhawaajiyay in Soomaalidu aanay dalka Itoobiya marti ku hayn balse ay la sameeyeen shacabweynaha reer Itoobiya waxaanu sheegay in wadooyinkan cusub ay yihiin guul soo hoytay shacabka Soomaaliyeed oo ku kobcin doonaan dhaqaalahooda iyo ganacsigooda. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa safar cirka ah ku yimid deegaanka Soomaalida maanta waxaanu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Goday waxaanu safar kala duwan ku maray magaalooyinka Goljano, Lafacis iyo Barre. ugu dambeyntii waxa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Jigjiga isagoo ugu soo gudbay dhinaca deegaanka Hirdhiya. Baare Cali Qaaje, RTN TV, Jigjiga.